dugsiyada Umar bin Khattab ee ku yaala magaalada Boorama ee caasimada labaad ee Soomaaliland isla markaasina ah dugsiyada ugu waaweyn Soomaaliland oo inta badan kaalmaha koowaad ka gala imtixaanada shahaadiga ee Soomaaliland ayaa maanta macallimiinta iyo maamulka dugsiyadaasi ay xaflad ballaaran u qabteen ardayda kala duwan ee fasalada dugsiyada hoose dhexe iyo sare munaasabad lagu gudoonsiinayay shahaadooyin ardayda ka kala gudbaysa fasalada kala duwan ee dugsiyadaasi munaasabadani ballaaran ee ardayda loo qabtay ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cabdirashiid Axmed Guuleed gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal mudane Aadan Faarax waalidiin waxgarad aqoon-yahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo iyagu isugu yimid munaasabadan ballaaran ee ardayda loo qabtay munaasabadani oo iyadoo ahayd si maqaam sare loo soo agaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo isaga yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama iyo ardayda dugsigaasi waxaana munaasabadani ballaaran ee ardayda loo qabtay ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada Umar bin Khattab mudane Cabdiwahaab Cabdullaahi Aadan isla markaasina uu mahad celiyay waalidiinta iyo guud ahaanba cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladan ujeedada ugu weyn ee uu sameeynay waxa weeyaan horta waa xaflad sanadkiiba hal mar aanu sameeyno la soo qaban qaabiyo macallimiinta iyo maamulka dugsiga ay soo qaban qaabiyaan ujeedada koowaad ee aanu markaa xafladan u sameeynay waxa weeyaan in abaalmarino aanu ku gudoonsiino ardayda kaalmaha koobaad labaad iyo saddexaad ka galay fasaladooda imtixaankii ugu dambeeyay ee finalka gudoomiye ku-xigeenka dugsigaasi Maxamed Cali Cumar Jaabir mudane Cabdi Aadan Faarax oo kamid ah macallimiinta wax ka barta dugsigaasi iyo mudane Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo isaguna kamid ah macallimiinta wax ka barta dugsiyada Umar bin Khattab ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina waxay ka warameen dadaalkii ballaarnaa iyo marxaladihii kala duwan ee ardaydu ay soo martay iyo guud ahaanba sida maamulka iyo macallimiinta dugsigani ay ardayda u la dadaalaan barnaamijka runtii waa barnaamij dhinac kooban dhinacna ka ballaaran waalidiintana waxaan leenahay waa maalinta runtii aad ubadkiina aan hayno ilaa 9 bilood ama 8 bilood wax ku dhow aad natiijadooda iyo farxadooda aad kala qayb galaysaan annagu hadaan nahay macallimiinta waxaan nahay waalidkii labaad idinku ilmaha waxaad ka soo korisaan xagga jirka annaguna waxbaan barnaa dadada waxaan leeyahay fasax baa la galay wadhanin oo halka hawshii kaga hadhinay waxbarashadii sii wada qaar kamid ah ardayda dugsiyada Umar bin Khattab ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana hadaladoodii kamid ahaa quraanka ilaahay wuxuu ku leeyahay waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana walidkayn loo samafalo quraanka ilaahay ku sheegay qad adhallakum ya ibadallah شهر عظيم جعل الله فيه جلائل الأعمال وفضائل العبادات وخصه من غيره من الشهور gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal mudane Aadan Faarax oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga iyo guud ahaanba ardayda wax ka barata oo uga mahad celiyay dadaalka iyo sharafta ay gobolka Awdal u soo hooyay dugsiga Umar bin Khattab waxaan aad ugu mahadinayaa oo mahad u soo jeedinayaa maamulka iyo macallimiinta dugsigan oo runtii ah dugsi moodala ka muuqda gobolka ama degmada iyagana mahad baan u soo jeedinayaa dadaal fara badan bay sameeyeen waana la og yahay mana qarsoona macallinkuna kulley ammaan badan buu mudan yahay anu macallin baan ahay macallinimadana aad baan u jecelahay waayo nolosha gebigeedu waa macallin bay ku tiirsan tahay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cabdirashiid Axmed Guuleed oo munaasabadaasi soo xilay ayaa isaguna sidoo kale u mahad celiyay guud ahaanba ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsiyada Umar bin Khattab maamulka macallimiinta iyo waalidiinta dhashay ardaydaasi dugsiga Umar bin Khattab wuxuu ka mid yahay haldoorka dugsiyada wuxuu ka mid yahay gobolka Awdal wuxuu ka mid yahay hormoodka dugsiyada ee qaranka Soomaaliland ayuu ka mid yahay waa la og yahay halka maanta oo marayo shalay sidoo soo bilowdayna waa la og yahay dhamaanteen waa ka dhareegsanahay dugsigan sida uu yahay waxaan leenahay Allah barakeeyo halka ka sii socdo baan leenahay ilaahay halka ka sii hirgeliyo baan leenahay deegaanka ama xaafadan aynu deganahayna faa'iido fara badan ayuu dugsigan u hayaa waayo wuxuu noo soo saaraa ubadkeena wuxuu noo baraa inoo barbaariyaa
aad iyo aad bay macallimiinta iyo maamulku ugu mahadsan yihiin. gabagabadii ayaa ardaydii fasalada kala duwan ee Cumar bin Khadaab ka gashay kaalmaha koowaad ayaa waxaa halkaasi lagu gudoonsiyay shahaadooyinkii ay ka mudaysteen dugsigaasi. dugsiyada Cumar bin Khadaab ayaa waxa uu ka mid yahay dugsiyada guud ahaan ugu facaweyn la Somaliland isla markaasina sumcad ballaaran u keenay gobolka Awdal. xafladanina waxa ahayd soo xidhitaanka sanad dugsiyeedkii 2014 iyo 2015 wa Ahmed Faarax Barqad Ahmed Barakale telefishanka caalamiga Royal Boorama.